dowladda federaalka Soomaaliya ayaa war ka soo saartay shirweynihii 20 bishan ee golaha mustaqbalka Soomaaliyeed ay ugu baaqeen inay qabato dowladda federaalka Soomaaliya war saxaafadeed ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu yiri xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyadoo ka duuleysa tala soo jeedinta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxay casuumad rasmi ah u fidanaysaa golaha mustaqbalka Soomaaliyeed sidoo kale xukuumadda iyadoo tixgelinaysa dadaalada lagu xoojinayo midnimada ummadda iyo sidoo kale wadajirka dalka tabagelinta dimuqraadiyadda ku dhisan wada tashi iyo sidoo kale isu tanaasul isla markaana tixgelinaysa qodobka lixaad ee baaqi ka soo baxay golaha mustaqbalka Soomaaliyeed waxay ku dhawaaqaysaa gogol wada tashi qaran oo furmi doonta 1 bisha Febraayo ee sanadkan 2026 taas oo ka dhici doonta magaalada Muqdisho qabanqaabada shirkani waxay xukuumadda federaalka Soomaaliya u xil saartay guddi wasiir ah oo hormuud u yahay wasiirka cadaaladda iyo sidoo kale arrimaha dastuurka Xasan Macalin waxay sidoo kale xukuumadda federaalka Soomaaliya ugu baaqaysaa golaha mustaqbalka Soomaaliyeed in ay soo magacaabaan cidda dhinacooda ugu xil saaran qabanqaabada shirka si la isku la faguro ajendaha shirka una noqdo mid miro dhala